Garoonka kubadda cagta Mira Awaare ee magaalada Garowe ayaa guddiga gacanta ku haya dhismaha la magacaabay 15kii bishii saddexaad ee sanadkii 2018. Shacabka reer Puntland iyagoo isku duuban gudo iyo dibadba waxaa loo kacay dhismaha garoonka, taasi oo looga gol lahaa in magaalada Garowe ee xarunta caasimadda Puntland ay yeelato garoon roog ah oo la jaan qaada gobollada kale ee dalka. Muddo dheer oo dhaqaalihii lagu dhisi lahaa garoonka kubadda cagta ee Mira Awaare lagu guda jiray ururintiisa waxaa garoonka si rasmi ah dhismihiisa loo bilaabay horraantii bishii tobnaad ee sanadkii 2019 muddo yar uun ka hor xanuunka safmarka ah ee coronavirus. balse dhismaha garoonka oo si xawliya ku socday waxaa caqabad weyn oo guud ahaanba joojisay shaqadii garoonka ka socotay ku noqday xanuunka caalamka oo dhan isaga gudbay ee COVID-19 kaasi oo muddo ka badan 6 bilood ay shaqada garoonku hakad gashay. bishii sideedaad ee aynu ka soo gudubnay sanadkan 2020 ayay shaqada garoonka dib u bilaabatay. hadda waxa gabagaba maraya wejigii koowaad ee garoonka oo ah dhigista roogga cagaaran. Maxamed Cali Ciise Ciiro waa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Puntland ahna gudoomiyaha guddiga gacanta ku haya dhismaha garoonka. waxa uu ka warbixinayaa shaqada garoonka iyo halka ay marayso. alxamdulillah walaalayaal garoonku fayskiisii koowaad insha Allah wuxuu marayaa waa ujeedaan sadbiskii waa dhamaaday garoonkii roogii baa la dhigay walina waxa ku socota gigiijintii iyo wali rabar ku shubistii ma gaarin wali koolayntii ma gaarin insha Allah wiigaga soo socda insha Allah waxaan rajaynaynaa in fayska koowaadi insha Allah soo gabagaboobaan hadii Ilaahay idmo. dhaqaalaha loo hayo miyaa ku eeg fayska koowaad kaliya mise fayska labaad iyo qaybaha dhimanna waa lagu sii dari doonaa dhaqaalihiisa waa haysa maye dhaqaalihii fayska labaad ma hayno kan koowaad haddaan dhamaystirno alxamdulillah laakiin fayska labaad rajooyin badan baan qabnaayo insha Allah oo madaxweynuhu ugu horeeyo waxaan rajaynaynaa ka seexan mayno waxaan rabnaa inaan israacin doono idanka rabbi rajadaasaan qabno. waayahay ma ka cabsi qabtaan markaasi in garoonka uu fayska labaad isku kiintaago oo uu dhaqaale aad markaas ku bixisaan maadaama uu fayska labaad uu kala lacag badan yahay fayska koowaad aad iyo aad laakiin sideedaba waxa standardka ay waxa weeye waa meesha shaqadu ku bilaabanayso waa fieldiga oo FIFA ay u taqaano meesha laga rabo in maaragtay shaqadu ka bilaabato waa garoonka inta lagu ciyaaro. dhanka kale Maxamed Ciiro ayaa sheegay in wejiga koowaad ee garoonka ay soo dhammaan doonto 15 bisha tobnaad ee nagu soo foole si toosana markaasi loogu bilaabi doono ciyaarta kubadda cagta ee garoonka. insha Allah waxaan rajaynaynaa tobnaad dhexbartankeeda insha Allah waxaan rajaynaynaa in fayskiisa koowaad 10keeda ugu dambeyn 15keeda hadii Ilaahay idmo in insha Allah aan fayska koowaad insha Allah ka farxarano hadii Ilaahay idmo. kallay fayskiisa koowaad hadduu dhamaado waxa sida qorshaysan in ciyaaro ka bilowdaan waa lagu khasban yahay. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland ayaa dhawaan sheegtay in loo diyaar garoobo tartanka kubadda cagta ee gobollada Puntland taasi oo la filayo in uu noqdo garoonka Mira Awaare kan lagu qaban doono tartankaasi. xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Puntland Mustafa Maxamed Minjacase oo aan arrintaasi wax ka weydiiyay ayaa ka warbixiyay sida loo qaban doono. real isdahay marhumayso guddigii waa rumeeyeen in garoonka cagaar laga dhigo laakiin quruxdii garoonka maadaama caasimadu ku yaal caasimaduna ay tahay meesha kaliya dawlad laga fiirsho inay wax walba ugu qurux badan tahay. sala socoto wasiirka wasaaradda shaqada ciyaaraha Puntland Jaan Faarax wuxuu soo saaray wareegto ay gobolada isugu diyaariyeen ciyaari gobolada oo ciyaaro saaxiibtinimo sameeyaan. sala socoto waxaan soo qabanay kulamadii gobolka Bari iyo Highland gobolka Bari Karkaar iyo sidoo kale Highland iyo Karkaar. waxaan rajaynaynaa gobolada kale inay ciyaaro saaxiibtinimo bixi doonaan dhawaana aan u diri doono meel ay ku ciyaari doonaan. garoonkan hadduu dhamaadana kulli qorshaha ugu horeeya wuxuu yahay iyadoo wasiirka laga tashanayo ciyaari gobolana ay fooda nagu soo hayaan inuu noqon doono ciyaaro lagu daafuri doono. aan rajaynayno ciyaaraha gobolada oo ka xiisa badan ciyaaraha kale xaqiiqdii oo gobol walba oo shacabkiisa ku nool taageero xoog ka helaya. marka waxaan rajaynaynaa oo aan aad u jecelahay inay noqdaan ciyaaraha ugu horeeya inay noqdaan ciyaaraha gobolada Puntland insha Allah billahi kareem. waxaan halkan kaga faa'iideysanayaa guddigii garoonkan u kacday in dhammaantood u mahadcelinaya. sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa bahda saxaafadda Puntland oo ka howlgashay dhalinyarada iyagana doorkooda ka qaatay baahintooda.
waxaana aad ula hadlayaa bulshooyinka Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland iyo kuwa gobolka nool dibadda ku nool inay garoonka fayskiisa labaad u diyaar garoobaan oo xaqiiqdii garoonkani wuxuu noqon doonaa garoonkii caasimadda waa garoon Soomaaliyeed waa garoonkii 2010 martigeliyay ciyaari gobolada Soomaaliya 15 gobolaha kaasoo gogol xaar u sameeyay in gudaha dalka lagu qaban karo shirarka waaweynaa ee garoowani garowto taasina waxay ku tusisay in dawladda haatan jirta oo garoonkani uu ku leeyahay qayb weyn waayo sporti waa furaha nabadda waxaan rajaynaynaa in dhalinyarada la jahayo waxayna u noqon doontaa shaqo abuur ganacsatada shirkadaha waaweyn waxaan leeyahay doorkiina ka qaad wejiga labaad ee garoonka kubadda cagta Miro Awaare oo aan hadda wax dhaqaale oo lagu bilaabo wejiga labaad lahayn sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga dhismaha garoonka kubadda cagta gacanta ku haya Maxamed Ciiro laakiin si rajo weyn la qabo ayaa la filayaa in dhawaan la bilaabi doono